Dilal qorshaysan oo aan waayihii dambe looga baran caasimadda ayaa ka bilowday magaalada Muqdisho, kuwaas oo lagu ugaarsanayo odayaasha dhaqanka iyo culummada. Shantii cisho ee lasoo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dhowr toogasho, waxaana ku dhintay 5 ruux oo isugu jiray odayaal dhaqameed, culummo iyo ganacsato. Haddii aan ku bilowno, kooxo hubaysan ayaa saaka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxay ku dileen nin oday ahaa oo lagu magacaabi jiray Macalin Cabdullaahi Cabdiraxmaan. Ninkan odayga ahaa ayaa xilligii la dilay wuxuu ku sugnaa meel u dhow guriga uu ka deganaa oo ku yaalo inta u dhaxaysa Ex Control Afgooye iyo Hanta Dheer ee magaalada Muqdisho. Xilli uu ka soo laabtay masjidka uu salaada subax ku soo tukaday, waxa uu noqonayaa dilkii ugu dambeeyay ee si qorshaysan loo fuliyo shantii cisho ee lasoo dhaafay oo lagu dilay dad kala duwan. 12 bishan isla magaalada Muqdisho waxaa lagu dilay 3 oday oo 2 ka mid ah ay ka shaqaynayeen gawaarida u kala goosha Muqdisho iyo maamulka Galmudug. Dilkan ayaa ka dhacay isgoyska Baar Ubax ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ahaa mid qorshaysan. Kadib kooxihii dilka fuliyay ayaa goobta iskaga baxsaday. Dhanka kale, isla xilligaasi saacada kadib degmada Kaaraan waxaa lagu dilay nabadoon caan ka ah magaalada Muqdisho oo lagu magacaabi jiray Xasan Cali Abubakar, waxaana ahaa nabadoon Muqdisho si weyn looga yaqaanay. Kooxihii dilka geystay ayaa iyaguna goobta ka baxsaday, mana jiraan wax wara oo ka soo baxay laamaha ammaanka ee gobolka Banaadir. Isla 12 bishan degmada Dharkeenle gobolka Banaadir waxaa lagu dilay imaam masaajid kaas oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Sheekh Cabdulcasiis Maxamed Xirsi. Sheekh Cabdulcasiis oo imaam ka ahaa masjidka Dabaqeenka ee degmada Dharkeenle ayaa la qaarijiyay. Kooxihii dilka geystay ayaa goobta iskaga baxsaday. Sheekha dilkiisa ayaa waxa ka soo baxay warar kala duwan. Qarxii Soobe ee kadib dhowr khudbad oo masaajidka ka jeediyay ayuu kaga hadlay dhibaatadii loo geystay dadkii lagu casuugay qarxii Soobe ee magaalada Muqdisho ka soo dhacay 29 bisha Oktoobar ee soo dhaafnay, waxaana markaas la xiriirinayaa dilkiisa maadaama uu carbaabay kooxda shabaab oo qarxaasi sheegatay. Muqdisho waxaa marar kala duwan lagu dilay dad shacab ah, mas'uuliyiin, askar iyo xubno kale, waxaana inta badan dilalkii ka dhacay magaalada Muqdisho mas'uuliyadda sheegatay dagaalyahanada Al-Shabaab. ilaa hadda laamaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ma aysan ka hadlin dilalkan qorshaysan ee ka bilowday magaalada Muqdisho, waxaana dadka haatan caasimadda ku nool ay wajahayaan cabsi aad u baaxad weyn maadaama magaalada caasimadda Muqdisho ay ka dhaceen dilal qorshaysan oo loo adeegsaday bistoolado.